Dele Alli xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur iyo xulka qaranka wadanka Ingiriiska waxa lagu tiriyaa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa ee soo saartay kubadda cagta Ingiriiska 23 jirkan waxa uu hore ugu guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican daayarka Ingiriiska ninkan waxa uu hore u soo xiran jiray fanaanad ay ku qoran tahay Ali oo ah magaca qoyskiisa balse markii dambe waxa si lama filaan ah lagu arkay isagoo xiran ama wata magaca Dele oo ah magaciisa shakhsiga kuna bedelay kii qoyskiisa waxaana taasi uu ku micneeyay inuusan wax cilaaqo kala dhaxayn qoyskiisa tani waxay ka dambeysay qiso murugo leh wiilkan asal ahaan ka soo jeeda reer Nigeria ku kaliftay inuu ka guuro magaca qoyskiisa ee ahaa Ali una guuro kiisa shakhsiga ee Dele bishii Abriil sanadii 1996 markii uu dhashay Dele isagoo kaliya jira isbuucay waalidkii Kenny Ali iyo hooyadii ay kala tageen waxaana u guuray aabihii gobolka Texas ee Mareykanka si uu la noolaado xaaskiisa cusub markii uu jiray da'da 13 jirka hooyadii waxay siisay qoys uu la noolaado waxaana kafaala qaaday lamaane aan dhalin wax caruura oo kala ahaa Alan iyo Sally Hickford sababtaasi ayaa ahayd wixii ku kalifay inuu noco qoyskiisa isla markaana uu ka guuro magaca waalidkii waxaana aabihii dhowr jeer uu isku dayay inuu la hadlo isla markaana xalliyo mushkiladda 2 sano xitaa waxa uu ka aamusnaa ama gooyay hooyadii inkastoo mar walba gabdhaha ay isku dayi jireen in Dele hooyadii uusan ku ciqaabin falkaasi inkastoo magac ahaan si rasmi ay u qaadan waayeen qoyskan soo korsaday Dele sababa qaanuun aawadeed haddana waxay ku caawiyaan inuu ku biiro akademiyadda MK Dons waxaana ugu sii gudbay naadiga Tottenham Hotspur markaad daawatay kadib anaga hilmaamin inaad subscribe tiraahid oo aad like nagu dhiirigelisid isla markaana aad u sii shargareysid saaxiibada aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan